dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay tallaabo ka qaadayso shirkado dayacay xujaayada sanadkan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay qaar ka tirsan shirkadihii keenay xujaayada inay si qaldan u maamuleen guryihii xujaayada ee Mina. Wasiir ku-xigeenka oo ka mid ah guddiga dowladda Soomaaliya ay u xilsaartay kormeeridda xaaladda xujaayada Soomaaliyeed ayaa sheegay in shirkadaha qaarkood ay sameeyeen dayacaad aad u weyn. Waxa uu sheegay in dowladda ay tilaabo ka qaadi doonto isla markaana si adag loola xisaabtami doono 4 shirkadood oo uu sheegay inay marsiiyeen hanaan qaldan xujaayada Soomaaliyeed ee sanadkan jooga dalkaasi Sacuudi Carabiya. Daraa maalintaan ahayn oo habooneyn in dadka qaarkood si aan habooneyn u tageen Mina taa iyada oo culamo horkacdan ee qaladaad kulli ay noqon doonto mid laga xisaabtami doono shirkadaha noocaan la xisaabtami doono maadaama arkaysaan gaarigan hadda noociisa arkaysa ayagana loogu qidmeenayo looguna talagalay in mataqaanaa wanaagaas iyo waqtigiisa ay ku dhaqaaqo in dad suuq jooga ay iska raacaan xujaayada qaarkood waana ayaan dar taagan waxaan leenahay in ugu digeynaa inta badan inaysan noocaan oo kala hadda u dhicin waxaan leenahay shirkadaha shalay qaldamay afarta waa noo xisaabsan yihiin waana la xisaabtami doonaa haddii aan leedmo insha Allah tacaala waa wax gardarra waa wax aan ku haboonin xaajiga in mataqaanaa dulmi looga geysto xaaji miskiin oo socdo loo baahnaa saacadan gaariga inuu raaco meeshaas oo raashin oolin biyaan oolin haddii orod iyo buuxin iyo isgarab carar taasina waxay tahay dhaawac markiisaba dhacaysa in mataqaanaa foodadaas ay timaado oo aan kulli haboonin in xujaydii oo aanan meesha gaarin in la sii galo insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa kulli waa arkaysaan in bilow waxa uu xusay in sidoo kale gaadiidka basaska ee xujaayada qaar u qaadi lahaa Mina aysan helin isla markaana hawshaas ka gaabiyaan shirkadihii diyaaradaha ee soo daabulay. Sawirro laga soo qaaday xujaayada isla markaana la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinaya iyagoo jiifa dhulka. Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan dhowr shirkadood u ogolaatay in xujaayada Soomaalida geeyaan xajka waxaana jiray tartan la geliyay in ka badan 80 shirkadood. Tartanka ay xukuumadda sheegtay inay ku soo baxeen 58 shirkadood kuwaas oo xaq u yeeshay inay xujaayada soo daabulaan sanadkan qaarkoodna gurbaba ay dayacaad ku sameeyeen xujaayada sanadkan.